بني آدم كوبا بلوغيسي هوري la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 باقين برشدا ددوينها باقين waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoonyahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دوادا برنامج كحساب بدن ترتك على بورك التكنولوجيا دا سنة كلا كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجود ترى جلي رجلينتا أقويها كي يدليرت كلا دوان جودهم با قبل هذا كلا دوان السومال لان الدنا إسلام كاسينا برتي أقوانت التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسيا إسلام كاسينا مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi iyo qaybta horeysay ee barnaamijkaasi bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo bubkee yuu kaga bogtee baaqin barashada dadweynaha baaqin برشدا ددوينها إلا باهيايو لبالارياي إلا باهيايو لبالارياي بلانتنوا بقول كيبا بقول بقايو قالين لغو براتما ورين انتنا برنامجka faafayntiisa kale waxaan jeclahay halkan igula soo dhaweysaan gudoomiyaha gudiga kala saarida kooxda tartamayaasha tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ahaan isku dubaridii barnaamijka Professor Mubarak Ibrahim R waxaan jeclahay soo bixisaan waxa kale oo jeclahay in la soo dhaweysaan Aydruus Maxamed Ibrahim oo kamid ah xubnaha gudiga ee halka ku kala saaraya tartamayaasha waxaan sidoo kale u yeedhayaa injineer Farxaan Aadan Haaruun oo kamid ah khubradda dhinaca ICT-ga waxaan mar kale u yeedhayaa xubin kale oo kamid ah gudiga Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale ugu dambeyntii aan u yeedhay xubinta u dambeysay ee gudiga kala saaridda ardayda ama dhalinyarta ku tartamaysa tartanka hal-abuurka injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil aad baad u mahadsantihiin haatanna ku soo dhawaada CV-ga gudida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim R Mubarak Ibrahim R waa gudoomiyaha gudida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Badr waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada masters ku qaatay software engineering taas oo ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeegga tiknoolajiyadda waa kuma Farxaan Aadan Haaruun Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada masters ku haystaa cilmiga computer science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group waa kuma Dr. Aydruus Maxamed Ibrahim Dr. Aydruus Maxamed Ibrahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da waana agaasimaha machadka IT-da ee Academy oo ku yaala magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliye dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Hasi Consulting Firm ka
shaqaysa tababarka cilmiga hogaaminta maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha. cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanuu hore uga soo shaqeeyey hay-adda PSI. barnaamijku wuxuu yeelan doonaa 3 qaybood. qaybta ugu horeysa waxay noqon doontaa marxaladda koowaad ee lagu qiimeyn doonaa waxa qofka halkan soo istaagi doonaa waxa uu haystaa 5 daqiiqo 5 daqiiqo wuxuu ku soo bandhigi doonaa barnaamijka ku tartamaya habeenkan caawa tartanka qayb galayo kadib waxa marka la arko barnaamijkiisa waxa qiimeyn doonta guddiga oo markiisa ma dhibcasiin doonta mar kale waxa fursad loo siin doonaa 15 daqiiqo halkan haddana inuu ku soo bandhigo aqoontii kala duwaneed halkan ama halabuurkii uu sameeyay waxaana su'aal ka weydiin doonaa xubnaha guddiga taasna mar labaad waxa la siin doonaa dhibco iyo qiimeyn ugu dambeyntina halkan waxa iman doona kooxdu waxa iman doontaa iyadoo wadata si practical u fulinaysa ama wixii tus oo taabsi ah inay halkan ku soo bandhigaan aaladii ay sameeyeen ama wixii ay hindiseen la xiriiraya tiknoolajiyada in si toos ah halkan ay bulshada kula wadaagaan. waxaan hadda gudageli doonaa qaybtii horeysay ee barnaamijkeena waxaanu yeedhi doonaa tartamaha habeenkan caawa nasiibka u yeeshay inuu noqdo tartamaha koobaad ee barnaamijka tartanka halabuurka waxa weeye So Smart Solution ayaan jecelahay inay ku soo dhaweeyay stage-ka idinkuna aad u sabcisaan. magacaaga saddexan magacayga waxa la Maxamed Axmed Qaahira. maxamed caawa halka ku haysataa fursad 5 daqiiqo ah waxa marka hore aad soo bandhigi doontaa barnaamijka halkan tartanka ka qayb galayso waxaad bulshada la wadaagi doontaa iyo xubnaha guddiga halkan qiimeynaya barnaamijka si muhiimadda uu leeyahay baahida loo qabo iyo sida aad u halabuurtay kadibna qiimeyn baa lagu sameyn doonaa waan ku bilaabi doonaa 5 daqiiqo oo horeysa waxaan idin kala baxaya adiga iyo daawadayaasha barnaamijka. bismillaahir rahmaanir rahiim. barnaamijkaygu wuxuu ku saabsan yahay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan xafiiska imtixaamaadka iyo shahaadooyinka qaranka. ujeedooyinka aan u sameynay software-kan waxa ka mid ah in ay wasaaraddu u baahan tahay ama xafiiska imtixaamaadku in aanay ahayn storage ama meel daatada lagu kaydiyo sidoo kale meel haddana daatada xogta dib looga helo in lagala soo baxo sidoo kale iyo in xogtii laga isticmaalo adduunka oo dhan oo iyadoo online ah. area meelaha uu khuseeyo barnaamijkaygani haddii aan idin tabto waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaamaadka iyo shahaadooyinka iyo sidoo kale jaamacadaha oo user laga siinayo iyo iskuullada kuwa publica iyo kuwa private-ka labadaba. sidoo kale waxyaabaha waxaa ka mid ah dugsiyada sare kale iyo kuwa intermediate-ka. sidoo kale barnaamijkaygu wuxuu khuseeyaa ardayda iyo waalidiintood si halkaa ugala socdaan ardaygii wuxuu keenay iyadoo la gelinayo roll number-ko kaliya. dhibaatooyinka jiray markaan aragnay waxa ka mid ah iyadoo aan lahayn meel xogta lagu kaydiyo dibna loogala soo baxo oo digital ah iyadoo aanay jirin wasaaraddii in aanay isku xidhnayn laamaheedii sida gobollada heer degmo iyo sidoo kale iyadoo aan laga isticmaali karayn adduunka oo dhan hab online ah. halkan aanu keennay waxaa ka mid ah in daatadii online lagula soo bixi karo ama xogtii sidoo kale meel adduunka oo dhan laga isticmaali karo oo laga soo access garan karo in aanu sameynay security level aad u sareeya oo ay ka mid tahay SSL iyo HTTPS. wuxuu leeyahay sidoo kale si degdeg ah in friendly user interface wax loo yaqaano ama inuu qof walba fahmi karaayo system-kan oo kale. sidoo kale waxa la gelinayaa roll number-ko kaliya si natiijadii loo helo waxaad ka isticmaali kartaa computer-kaaga tablet-ka iyo mobile-kaba taasoo aan ku base gareynay hab casri ah oo responsive leedahay kaasoo kuu suurto gelinaya inaad app soo download gareyn aad u baahnayn browser-kaaga aad gelinayso kabacdu marna mobile-ka leekaanayo marna uu computer-ka leekaanayo. update-ka ugu dambeeyay aan isticmaalay sidoo kale isku xidhka xarumaha wasaaraddu ay leedahay heer gobol heer degmo. luqadahan isticmaalo waxa ka mid ah luqadda wejiga hore loo isticmaalay oo ah PHP luqadda loo yaqaano ta Facebook lagu sameeyay ah casriga iyo JavaScript CSS wax loo yaqaano HTML iyo Bootstrap aan ku qurxinay. xagga dambe data lagu saf garanayo waxaan isticmaalay wax loo yaqaano SQL MySQL ama MySQL wax loo yaqaano. noocyada waxa uu ka kooban yahay system-kayga ama qaabkiisa waxa ka mid ah daatadii oo la xareynayo waxa ka mid ah ina sida imka la verify garanayo shahaadooyinkii online lagu verify garanayo sida imka haysta golaha deegaanka iyo baarlamaanka halkaas baa roll number-kooda la gelinaya laga heli lahaa result-kii exam-ka kale la helaya admin area uu leeyahay oo security report-kii uu leeyahay 10 arday ugu sareeyo top 10-kii ayaad arki kartaa grade A grade B ilaa grade C iyadoo la filter garanayo
iskuullada ugu sarreeya rankinkoodii ama kala sarreyntoodii baad arki kartaa gender baa loo kala saari karaa rag iyo dumar baa loo kala saari karaa security hashing wax la dhaawano sameynay encryption ama wax loo yaqaano SSL secure socket layer iyo HTTPS oo secure in update ugu dambeeyay ku sameynay PHP version 7.4 wax loo yaqaano taasoo ah security ugu dambeeyay marka la isticmaalo Facebook isticmaalo backup buu leeyahay easy sidoo kale dib loogu soo celin karo sidoo kale waxaad u import garan kartaa wax loo yaqaano document formatska Excel iyo CSV wax loo yaqaano exportka marka dibadda loo soo saarayana waxa la sameyn karaa waa document format waxa weeyaan Excel Word iyo CSV wadanta aad baad u mahadsantahay shacabka utuma maxamed barnaamijka si qiimaha badan soo bandhigay kooxda soo smart waxaan jecelahay bal qaabka ay warkeen xubnaha guddiga halkan fadhiya oo ah khubro dhinaca ICT-ga ganacsiga iyo macallimiin waaweyn waxaan barnaamijkaasi la qiimeyntii horeysan oo maray barnaamijkaasi waxaan ku bilaabi doonaa waxaan dhinaca bidixda ka soo bilaabi doonaa injineer Cabdirashiid ayaan jecelahay inuu qiimeeyo barnaamijkaasi bal qaabka uu arkay iyo dhibcaha uu siiyey Cabdirashiid markaan eegay presentationkii waxaan siiyey 50 dhibcood boqolkiiba 50 aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi kooxda soo smart solution maxaad ku qiimeysay 45 boqolkiiba 45 engineer Farxaan boqolkiiba 50 boqolkiiba 50 waa tahay Dr. Caydaruus 60 baan siiyey boqolkiiba 60 aad baad u mahadsantihiin waxaa intaasi halkaa ku qaadatay dhibcaha qaybtii u horeysay ee qiimeyntahayd waxaan ku rajeynayaa aad guulaysato iyo nasiib wacan barnaamijka tartanka hal abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday isla markaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaad geli doontaan marxaladii labaad ee ahayd in su'aalo la idinka weydiiyo bal barnaamijkaasi aad soo bandhigteen iyo nidaamka uu shaqeynaya qaabkii aad u soo hindisteen waxaan ku wareejinayaa xubnaha guddiga oo jaalayna idin kala baxo idinkiyo guddida haddaan anigu bilaabo waxaad noo sheegtay in aan system noocan ahi jirin oo aanay ku shaqayn maxaan ahayd wasaaradda waxbarashada qaybteeda imtixaanaadka muxuu kaga duwan yahay yani qaabka ay u shaqeeyaan ma wax system ah oo yaraata ma isticmaalaan miya halkaa miyaad daraasad ka samaysay bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin ha research waan sameynay waxaan la xidhiidhnay qaybta imtixaanaadka daawud iyo maamulka qaybta ICT-gaba wuu jiraa barnaamij website-da oo xogaha lagu kaydiyo laakiinse all version marka wuxuu kaga duwan yahay dan soo gudbo waxaan isticmaalnaa system caadi oo aan ahayn website oo PHP ah wuxuu kaga duwan yahay inay jaamacaduhu la socon karayaan xogtii ardayda sanad kastaba qalin jebisay oo marba rool marka la weeyay halkii waraaqaha loo geeyay jaamacadaha waraaqa laga eegayay ardaygii la lahaa rool markaaga sheeg maxaad keentay wuxuu kaga duwan yahay waa responsive oo qofku mobile markuu isticmaalayo ardaygu ase mobile ahaan buu ugu shaqeynaya application ma baahna waa responsive waxaan isticmaalnaa bootstrap kii version-kii ugu dambeeyay oo saamaxaya ardayga inuu mobilkiisana ku isticmaalo computerkana ku isticmaalo wuxuu kaloo saamaxayaa in users laga siin karayo wasaaradda gebi ahaanba wasiirka ama wasaaradda qaybteeda kale waxbarashada si ay ula socdaan riboodada ardada dhacday ardada baasay by yearly by academic year by gender waxyaabo noocaas ah riboodo fara badana waxyaabahaas dhan kaga duwan yahay sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay large uu ka weyn yahay halka markii hore ahay ardaygu inuu eegan karayo website yar uu ka eegan karayo xogtii asan ahayn responsive oo runtii ugu baahan yihiin responsive ama secure sidoo kale aanu jirin qayb loogu talagalay ardada iyo maamulka oo hal meel laga wada isticmaalayo systemkii website-kii laakiin kan wuxuu ku kala qaybsan yahay meel ardadu ay ka eegin karto imtixaanka iyo meel admin oo imtixaanada laga soo gelin karayo laga magaranaysaa userada laga samayn karayo laga maamuli karayo systemkiina sidoo halkan consumer note-ka ku cad waxaa ku jirta in xogta maxaa hayday laga heli karo top 10 students soo maaha top 10 oo kale ama ardaygu sarreeya 10 ka ardaygu sarreeya ama 100 ka ardaygu sarreeya hadba sidii okay alright laakiin waxaan filay warbixintii ugu dambeysay ee wasaaraddu ay soo saartay way joojisay mala wixii top 10 la oran jiray
ها لكن si kale loo xisaabinay in la raadiyo waqti badan qaato laakiin systemka automatic generate garanaya okay oo si fudud u sheegaya markiiba alright kulli anu sidan ka warqabo waxay leeyihiin website walibana online ah wasaaraddu oo aad ka heli kartid maxaa hayday dhammaan ardayda secondaryada maxaa hayday ka qalin jabisay iyo qof kasta gradekiisii markaas iyaga oo systemka ku qanacsan oo informationka ay ku shaqaysanayaan maxay ku qanacsan systemkiina muxuu tarayaa security-ga horta uu kaga fiican yahay maadaama markaan wareysanay aan in badan isla eegnay ay noqotay website oo keliya markaan wasaarad laga hadlayo hataa idea ahaan ICT ahaan markaan eegno website in imtixaanaadka lagu guro ama laga eegtahay waxaa ka wanaagsan in system caadi oo dhammaystiran oo adminkiisi leh oo qaybtii ardada leh la isticmaalo oo magaranaysa oo developmentkii lagu kordhin karayo waxaa laga yaabaa website-kiina u baahan yahay in teams iyo waxyaabo kan la isticmaalo wuxuu kale kaga wanaagsan yahay aniga sheegay uu ka ballaaran yahay oo dee waxyaabo badan baa loo isticmaali karayaa oo aad u fara badan oo ka mid ah dee in jaamacadihi ay ka arki karayaan halkaas in iskuuladii ay la socon karayaan xataa laftigooda qiimeyntooda in la qiimeeyo iskuuladii oo user la siiyo ardadooda ugu sarreysay oo kale jaamacadda sanadka for example oo kale jaamacadaha Hargeysa ku yaala sanadka inta iska diiwaangelisay systemkiinu ma awoodi kareen inuu soo bandhigo inuu isku xidho eg wasaaradda muu sahli karayaa jaamacadda hebla inta arday sanadka iska diiwaangelisay in oo kale oo jaamacadda qofka ardayga iska diiwaangeliyo yani may arday baa sanadka iska diiwaangelisay maybe fresh jaamacadda marka wasaaraddu eg systemkiina ma isku xidhaya jaamacadaha iyo wasaaradda waa wasaaradda kaliya wuxuu iskaga xidhayaa waan kuri qaybta oo keliya ah in ay jaamacadu la socon karayaan ardada form 4 ka baxday sanadkan system hore jiro shaqadan qabtay iminka sax oo jaamacadu ay ka eegaan ardaydii qalin jabisay iyo gradeskoodii marka laga yimaado inuu yahay responsive maxaa kale lagu dooranayaa kiina oo lagaga tegaya ka hore security maybe kan kaleba waa lagu dari karaa HTTPS what else SSL certificate waa very cheap lacag yar baa lagu iibsan karaa way ku dari karaan waxaa laga yaabaa iminka markay daawadaanba xalqadan inay SSL ku daraan marka waa inaad at least haysato 1 2 3 5 shay waad leedahay wuu kaga fiican yahay kaayagu kan kale waxaad sheegteen xagga capacity-ga seebaad u cabirteen capacity-gu qaadi karo systemkeenu waxaan u cabirnay de kulley marka online yahay ee aad isticmaalaysid database backend waxaa jira the unlimited database inaad isticmaasho hadda imka SQL isticmaali waxaa laga yaabaa inuu limited leeyahay way kala duwan yihiin SQL-lada garanaysaan marka waxaan isticmaalnaa MySQL dee xog badan baan ku qornay runtii aad baan u tijaabinay waana aaminsanahay inuu unlimited yahay oo capacity badan dee qaadayo tu doono ma ka fikirteen in shirkadaha laftooda ay ka faa'iideysan karaan oo qofkay hire garaynayaan ay eegi karaan muxuu in user laga siiyo ka bacdina ay ka eegaan xogtiisa oo dhameystiran isagoo waxba ka bedeli karin wax privilege aan lahayn ma wax public u furan ba mise waa program qoladan imtixaanaadka boorka imtixaanaadku ay leeyihiin oo ay iyagu wax soo gelinayaan siduu u dhisan yahay marka halka dadku fahansiyo de waa qayb maamulku baa ka soo gelin karta awood aan in imtixaan soo geliso wixii imtixaana qaybta imtixaanaadku baa qosaysa in imtixaan soo geliyaan haddii jaamacadaha kale ama sida gudoomiyuhu sheegay shirkadaha kale user baa laga siin karaa isagoo online ah inay soo galaan userka ay ku galaan waxay uga baahan yihiin ay ka eegtaan iyadoo de waxyaabihii loo baahnaa laga xidhayo laakiin waa wax u gaara qaybta imtixaanaadka inay wax soo geliyaan wax ka bedelaan maamulkeeda iyo awooddeeda leeyihiin iyagoon u gaara haddii maamul noqoto anigoo su-aasha cabdiraxmaan daba socda systemkiina sidee bay jaamacaduhu xog ugu soo gudbin karaan qaabkay ugu soo gudbin karaan ma Excel ba ma systemkooda ayaa xiriir toos aad la sameynaysaa tusaale ahaan integration web services oo kale bal halkaan noo yar sharax igu celi su'aasha yacni waxaad sheegteen in systemka wasaaradda ka sakow daatadii jaamacadaha gaarka loo leeyahay private-ka inay ku jiri doonto markaa sidee bay tusaale ahaan oo kale marka ardayda markay isqorto liiskii ardaydii isqortay ee form 1 tusaale ahaan marka iska diiwaan gelisay sidee baa systemka loogu soo gudbinaya qaabkeebaa daatada loo gelinaya tusaale ahaan
import lagu sameeyaa Excel iyo waxaas in la soo import kariyo si fudud oo manual laga dhamaan karo add new la dhaho laga dhamaan karayo marka waa in la import karayaa Excel la isticmaalo ma ka fikirteen qaab maadaama badanaa iskuullada iyo laga yaabo inay leeyihiin systemyo gaara in qaab ka fudud oo API oo kala API waan ka fikirnay una aqbalay ka in API ku oo la sheekaysto barnaamij kale waa sababta inuu isticmaalo 7.4 aan isticmaalo way in smart solution iyo software kana samaysan baan idin bogaadinayaa waxaan idin rajaynayaa khayr badan iyo inaad guulaysataan insha Allah inaad sii wadaana waa idinku dhiirigelinayaa way waxaan ii cadaanin programka cidaad ugu tala gasheen sax mar jaamacadii buu gelayaa mar iskuuladii mar wuxuu u xidhan yahay oo boardkii examination kaliya ayaa shaqo ku leh bahalkan si guud yuu u adeegayaa yaa isticmaalaya yaad ugu tala gasheen bal in yar halkaa fahamka waxaan ugu tala galay xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka oo kaliya marka waa secondary-ga iyo intermediate-ka labadaba okay jaamacaduhu tusaale ahaan user bay ka yeelanayaan qayb yar user dee ay ka egtaan ardadii baxday oo kale oo tusaale waraaq loo geeyo graduateski oo secondary form ka baxdaa okay halkaa hadda xafiiska imtixaanaadku wuxuu ku eegay secondary-ga waxaa jira qolo kale oo muxuu ahaa commission qaabilsan higher education sax so marka higher education loo soo gudbo qolada imtixaanaadku iyagu waxay ku haraan secondary ma aragtaa marka barnaamijkiina ma ka fikirteen inaad ka ballaadhisaan oo uu noqdo waxay wada isticmaali karaan iskuullada privateka jaamacadaha iskuullada dawliga laakiin wixii tusaale ahaan imtixaanada secondary-ga oo keliya ku saabsan ay soo geliyaan boardku wixii kalena maaragtay si nidaamsan oo aad maaragtay ula shaqaysaan dhowr meelood waan ka fikirnay dabta marka wax la sameynayo mar walba dee marka programu jiro developmentigu kama maarmo wax meel istaagaya keligii maaha hadda waxaa laga yaabaa barnaamijka haddii qof isticmaalo inuu mustaqbalka dambe wax kale loo baahdo lagu kordhiyo lasii ballaariyo waa si wanaagsan barnaamijka maad iibinaysaan mise waa hadiyad wey maanu ya waan iibinaynaa okay marka maxaa lagu iibsanayaa what is the selling point qiimo yani may maxaa yani xafiiska imtixaanaadku muxuu lacag ugu bixinaya tusaale ahaan yani ujeed yani what is the selling point maxaad ku iibinaysaa haddii markaa shaar baan iibinayaa waa inaan sheegaa inuu cotton yahay inuu fiican yahay inuu midab wanaagsan leeyahay soo ma exactly maxaa iga dhigaya inaan iibsado oon lacag ku bixiyo waayo qofku wuxuu iibsadaa wax qiimo u leh soo ma taa haddaan ka jawaabo wuxuu ku iibsanaya waxa weeyaan baahi jirta oo uu ka maqan yahay systemkii hore features dheeraad uu kanu leeyahay ayuu ku iibsanayaa okay imisaad siinaysaan imisaasay idinka gelaya haddaan qiyaasno ilaa 6,500 okay marka running cost-ka idinka gelaya iyo initial investment-ka ma qiyaasteen ma arkayo budget-ka subscription baa loo baahan karayaa waxaa loo baahan karayaa dad kula shaqeeyo oo wax kula qabta waxyaaba badan baa jiri karaya kolley oo lacagta halka haddaan si yar daba galo systemkii already waad samayseen isaga iyo source code-kiisaba ma waad diibaysaan ood wareejinaysaan ma idinkaas sii haynaya oo source code-ka idinkaa leh laakiin wasaaraddu way isticmaalaysaa oo waxaad ka qaadaysaan wax la yidhaahdo annual maintenance fee oo sanadkii baad lacag charge garaynaysaan at the same time jaamacadihii iyaga laftoodu maxaa ku soo aadaya si ay u isticmaalaan systemka iyaga ma u freeba oo wasaaradda yani iibsanaysa halkaa haddaad in yar dib ugu noqotaan horta inkastoo heshiiska ku xidhan tahay marka wasaaraddii de wixii u geyso ay ku xidhan tahay inaad magaranaysa laakiin haddaad si aan maskaxdeeda ka shaqaysiino aanu eegno waxaanu jecelahay horta anigu ina subscription noqdo oo wixii magaranaysaayay muddo wixii update aad ku samaysid maadaama systemka si deeply aad u garanaysa adigu core-kii aad si fiican u fahmaysid waxaa laga yaabaa qof kale haddaad ku wareejiso inay xoogay muddo ku qaadato inuu implementation ku sameeyo change oo ka bedelo marka anagu waxaan jecel lahay markaan iska eegno inaanu kuna wareejino
laakiinse wixii magaranaysaa muddo kordhina subscription noqoto oo lacag ka qaadno taas jaamacaduhu anagu kolley iminka qiimaha iyaga maaha inaan jaamacadaha userka isticmaalayaan inaanu lacag kaga qaadno iyaga laakiin xagga wasaaradda un baanu ayaanu eegaynaa maxaad 6,000 ku doorateen aad u badin weydaan lacagta waxaan u doornay kolley wax walba waxay ku cayiin maadaama aan ku fikirnay inaan subscription noqdo inaanu haddana highs geyno oo qof wax laga yaabo inuu kugu diidaba waayo waxbaad ka iibinaysaa maadaama waxa uu iib yahay badi marka maximum baanu ka soo qaadanay inuu 6 iska noqdo dhexaad hadda sheegayso kale sharaxaadada waxa ka muuqatay inaad shirkadaha kale aad user siin kartaan soo ma ها وفي هرجرين كيان حكتيسي. أوكي يا أودا يعني قف شركة يعني مثلا كله برايفة ده سيباد قف حكتي وسين كرتاه يعني جريد كيجا أنت كاني information كيجا ما قاعد يجد ده حكت إنه عاصي وسنسيتيف وصح وهذه وزارة أقراطوية إن شركة دي يوزر للسيو ويقف حكتي كيجا وهذه أقراط لكن هذه كله أنا حق ملينا بحنو إن يوزر أي eegaan oo qofkaas xogtiisa halka eegaan laakiin qofkii ardayga ahaa ama qofkii grade ka in la socodsiiman ahayn wani kula in wasaaraddu ay bixiso oo dhahdo user hala siiyo shirkadaha marka systemka la wareejiyo adminka ay dhahaan hala wareejiyo hala siiyo shirkadaha user si ardayga in la ogeysiiyo waa muhiim oo kula talinaya tala fiican laakiin anagu mar walba xaq uma leeyihiin inaan shirkadii wasaaraddu aan ogeyn inaanu iska bixino user kabacdi dhanaha kala socda ardayda wax xogtooda ka eega وير مقرنسا برايفسي وحنت marka xogta la bixinayo qofkii xogta lahaa suu ku ogaanaya wuxuu ku ogaan karaa dawlad sheegaya sidee how way iminka marka arday la doonayay in la eego oo shirkada qaato doonaysa in ay hargeyso xogtiisa eegto qasab wasaaradii ama cidii maamulka haween dhahan qofkaas shirkadaas noo baahan in xogtaada la eego dee ma siin karnaa through which channel halkay marayaan ما SMS بودري ما تلفون بودريان ما SMS بودري كرا مركز سيستم كين مولي ما سيستم كين ماله لكن هو شعله أنا قدر سام سمارت أدون شو دوينيا واحد شعله هي قيبتي لبعضه واحد مرة قيمتي لبعض من بالهاك اللي يدينا برامج كاسات وقت شوابتين شواليات شوابيات بحسين والله قدي وقصوا بحد أنا قيمته هذه مرحلة دكتور عيدروس ما قبل أبي عيدروس قيمين هرات سمي شيء محاس كبد لي مكان مركز أركتي شوابه دي هناك دفاعين برامج كاسات بنيجا كواحدة سو سمارت kooxda so smart solutions horta barnaamijkan wada waa barnaamij wanaagsan oo wasaaradda waxbarashada kala anfici kara laakiin wuxuu baahan yahay maxay yahay improvement fara badan iyo in kor loo qaado oo features fara badan lagu daro marka grade-kan hore aanu siiyay wuxuu ahaa 60 marka 60 kuma ku diisanaya waa tahay injineer Farxaan runtii nimankani system kale soo eegeen waxay arkeen inay waxyaabo badan hagaajin karaan oo systemka hore ay kaga fiicnaan karaan runtiina waa idea loo baahan yahay markii hore konton baan siiyey 55 baan imika uga dhigay aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cali xarsi so smart group solution baan u jeedaa runtii barnaamij aad u qiimo badan weeye sida doctor Cabdiruus iyo Farxaan sheegana la sii ballaarin karo oo maaragtay laga dhigi karo mid ay maaragtay dad kala duwan iyo institutions kala duwan isticmaalaan oo xataa mustaqbalka loo dhigi karo in maaragtay jaamacadaha rankingkooda iyo iskuulada iyo maaragtay inta quality control qolada iyo waxa maaragtay la sameeyo shuruudo caynkaasa marka runtii waa barnaamij la ballaarin karo marka 5 baan ugu daray 45 hore siiyey 50 baan ayaan ka dhigay waa tahay ugu dambeyntii injineer Cabdirashiid maxaad ugu dartay kooxda soo smart solution markii aan dhageystay kooxda soo smart solution iyo jawaabihii ay bixiyeen su'aalihii aan weydiinay waxaan ugu daray 5% marka 55 ayaan aad baad mahadsantahay sacabka oo tamaad baad isii dhaweynaya hadii channel geystaan daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka tiknoolajiyada ee sanadka 2021 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan iyo tartan kale oo ka mid ah halqadii labaad iyo wareeg kale oo sii socda waxaanan u gudbi doonaa qaybaha kale ee barnaamijka
balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca sawirqaadida iskudubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qayb qaatay ilaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye